kulankan oo ah mid 6 biloodba ay mar isugu yimaadaan ururka ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalkani Kenya ayaa waxa uu ka qabsoomay magaalada Nairobi iyadoona ay ka soo qayb galeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya culimaaddin aqoon-yahano iyo arday Soomaaliyeed ujeedada kulankan ayaa waxa uu ahaa in ardayda Soomaaliyeed ay soo bandhigaan waxa uu qabsoomay bilihii aynu ka soo gudubnay iyo waxyaabaha aan u qabsoomin waxaana halkaasi si kooban uga hadlay qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed kuwa oo soo bandhigay caqabadaha ka hortaagan inay si wataan waxbarashadooda iyo sida ugu fudud ee looga gudbi karo caqabadahaasi ardayga yimaada gaalkacyo shahaadada Suleymaanaya ardayga Ismaaciil yimaada shahaadada Suleymaanaya ardayga Xamed yimaada shahaadada Suleymaanaya markii neef loo tagay dawladda laga codsaday waa la yeelay hadda koor wasaaradda waxbarashada u tagay waxaa la dhahay shahaadada saxda noo sheeg shanta shahaadada kale oo wada dugsi sare ah hayay marka caqabadaas waxaa looga fadhiyaa inay xalliso dawladdeena qofka Soomaaliga oo wax bartay iyo qofka baadiyaha jooga oo wax baran waligiis qalin aan qaadin isku mid ay yihiin taasna waxaa la yaabay waxaa laga rabaa marka wax baratay sawiradiisa سوي فكريس سوي لغميس ودنك سوي جعشها كل اللي كدوا هذا مركب وراء أنا قلت الحين أردت أقول هذا عيسى بكرة واجري عقبالها أنا هستوى عكم ذا وقلاشها كان علىها أو أتكاد الجوشي وشي أنا صلوك اللي حتوك جودهان مركب أنا أقول وراء هنا أتكلم زارد حبرشنا وحنا نقول إن دولة الصومالية وحكرنا منهج مدرسة شهادة مدرسة إنه تماضوا وأنكو أقبلنا مرة الصومالي dhanka kale waxa halkaasi ka hadlay marti sharafkii halkaasi ku sugneed iyagoona kula dardaarmay inay si wanaagsan uga faa'iideystaan fursadaha waxbarasho ee ay haystaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalkani Kenya waxaan u baahanahay generation iyo jiilkana soo kacay dad aqoonta ay xambaareen dad iyo dal daacad oo shilin dhaafsan tayada tacliinta iyo shaqada aan shilin dhaafsan aniga waxaan ahaa waxbarashadayda hoose iyo dhaxal waxaan soo dhameystay aan caseeyo ah jeeb la sigaar caseeyo ah 8 sano markaan jiray ayaa iigu dambeysay waalidkayga oo dhaliga ku faa'iideeyay waa in fursada laga faa'iideysto fursad kasta laga faa'iideysto oo cilmiga loo dadaalo ugu dambeyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ka oo ku dhiirigeliyay guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax ka barta dalkani Kenya inay u istaagaan sidii ay u badbaadin lahaayeen Soomaaliya oo ay ka jiraan dhibaatooyin fara badan waxbarashadooduna ay ka meel gaaraan maxaa iga galay eragaas doontikaaga ee maxaa iga galayga inaan iska dayno oo dalkeena iyo dadkeena dhisano Maslax Abukar Xaaji wararka STN Nairobi.